Assalaamu calaykum, magacayga waa Cali from Farm Somalia. Waad ogtahay ciiddu inay qayb muhiim ah ugu jirto noloshayda, noloshaada iyo nolosha qof walba. Waana mid ka mid ah walxaha dabiiciga ah ee aadka loo iloobay laakiin muhiim ah ee aan maalin walba ku tiirsanahay, ha ahaato dhirta, xoolaha iyo aadamaha. Taasina waa ciid. Laakiin dadka inta badan wax badan kama oga. Nasiib darro, taasi waxay horseedaa maaraynta carrada oo xumaata iyo xaalufinta carrada. Sida sawiradan soo socda muujinayaan, carrada waxay ku halaabi kartaa tusaale ahaan waayida shayga dabiiciga ah iyo nafaqooyin muhiim u ah koritaanka dhirta iyo dalagyada. Galleydan waxaa haleeyay nafaqo darro ciidda haysa darteed, ama noqotaa mid cusbo yeelata waraab qaldan dartii, ama xitaa gebi ahaanba ku lumi karta howlaha nidaam guurka sida dabaysha iyo biyaha. Nidaam guurka dabaysha waxaa sababi karo dabaylo ku dhufta dhulka dhirtii laga dhameeyay. Kaliya nidaam guurka dabayshu ma waxyeeleeyo dhulka isagoo qalajinaya ciidda iyo yareynaya nafaqada dhulka, waxay sidoo kale sababi kartaa wasakhowga hawada. Nidaam guurka xad dhaafka ah ee biyahana wuxuu khatar geli karaa wax soo saarka beeraha iyo wax soo saarka kaymaha. Ciiddu si ay u taageeraan nolosheena iyo nolosha jiilalka dambe, markaa waa muhiim inaynu dhammaanteen wax ka baranno oo ku saabsan ciidda lafteeda iyo qaab si joogto ah loogu isticmaalo oo loo maareeyo kheyraadka ciidda. Taasi waa sababta aan u sameynay barnaamijka Ciidaha Soomaaliya. Waana ku faraxsanahay inaad nagu soo biirayso oo aad si joogto ah noola socon doonto. Isticmaalka sida beeraha agroforestry system dhulkeena laga dhameeyay dhirta ma yareynayo nidaam guurka biyaha iyo dabaysha oo kaliya, ee xitaa wuxuu kor u qaadi karaa nafaqada ciidda haddii loo isticmaalo geedaha nitrogen-ka fix gareeya. Isticmaalka nafaqada geedaha wuxuu sahlayaa in wax soo saarku bato. Waxaa kaloo muhiim ah in la adeegsado dalagyada ku habboon ciidda aad wax ku abuuraysid iyo cimiladaada. Tusaale ahaan, ciidda haddii ay ku badan tahay cusbada, isticmaal geed u dulqaadan karo. Haddii aadan biyo badan haysan, isticmaal oonka geed u dulqaadan karo. Videogan aad maqlaysid wuxuu hordhac u yahay videos badan oo ugu talagalnay inaan uga sheekeyno ciidaha kala duwan ee Soomaaliya, laga bilaabo Gabiley ilaa Galbahaarey, laga bilaabo Baydhabo ilaa Boosaaso, laga bilaabo Dhuusamareeb ilaa Xarafdheere. Ujeedadu waxa weeye kor u qaadista wacyigelinta ku saabsan muhiimadda carradu u leedahay haddii aan rabno inaan nolosha dadka Soomaaliyeed kor u qaadno, ugana faa'iideystaan dadka Soomaaliyeed oo xiiseynaya inay wax ka bartaan ciidaha wadankooda, ha ahaadaan ardo ama beeraley rabto inay wax soo saarkooda hagaajiyaan. Galleyda laga soo saaro Soomaaliya halkii hektar badanaa uu ka yar yahay 1 tan, halka wadamo kale ka soo saaraan wax ka badan 10 tan, ama kuwa rabo inay dhiirigeliyaan dadka jooga wadanka naftooda wax u soo saartaan iyaga oon sugin gargaar ama deeq dad kale. Dhulka ay haystaan ama roobka ay haystaan haba yaraadee. Ciid magacyo kale ayay u yaqaaniin Soomaalidu sida carro. Dabcan kama wadno ciidda aan u dabaaldegno. Ereyga ciid micno kala duwan ayuu u leeyahay dad kala duwan. Reer magaalka intooda badan ciidda waa wasakh faraha ama guriga laga dhaqdo ama qudaarta ay iibsadaan si ay u cunaan. Biologistahana waxay u tahay meel hoy u ah noolayaal aad u fara badan. Hydrologistahana ciiddu waxay u tahay meesha kaydinaysa roobka, yareynaysana fatahaadaha, biyaha la cabana lagala soo baxo. Beeraleyda ciiddu waa dhulka 25 sentimitir ee ugu sarreysa ee la falo laguna barbaariyo dalagyada si loo soo saaro cunto.
dadka ciidda bartaa waxay ku qeexaan ciidda shay kasta oo dabacsan oo saaran ama yaala adduunka korkiisa awoodna u leh inuu taageero nolosha. qeexitaankan waxaan ka bedelnay English, laakiin haddii aad taqaanid qeexitaan Soomaali ah oo uga habboon fadlan nala wadaag. sidaan horay u taabanay, videoskan waxaa loogu talagalay in lagu soo bandhigo muhiimadda propertieska iyo maareynta carrada ee dhulka Soomaalida. taas micnaheedu waa inaad u baahan tahay inaad baratid qaar ka mid ah fikradaha sayniska ee ciidda asaasiga u ah si aad awood ugu yeelato inaad fahantid waxa lagu sharaxi doono cutubyada ama videoska ka hadlaya ciidaha Soomaaliya. fikradaha sayniska ee ciidda ee aan ku sharaxi doono videoska hordhaca ah waxaa ka mid ah soil forming factors ama siyaabaha samaynta ciidda, soil forming processes ama geedi socodka samaynta carrada, soil components ama qaybaha ciidda, iyo soil properties ama waxyaabaha chemical ama physical ahaan ay tahay ciiddu. soil health ama caafimaadka ciidda, ileen way jiran kartaaye ciiddu aad ayay u halaabi ogtahay, waana kheyraad aan la cusboonaysiin karin waqti dheerna beddelkeedu qaato. iyo soil horizons. waxaa ku xigi doona hordhac ku saabsan sahanka carrada iyo khariidadeynta iyo kala soocidda ciidaha adduunka. waxaan ka hadli doonaa goormay bilowdeen, maxaa keenay, iyo faa'iidooyinka ku jira. saddexaad, waxaan ka hadli doonaa taariikh ku saabsan sahaminta carrada iyo khariidadeynta dhulka Soomaalida intii uusan dhicin dagaalkii sokeeye iyo wixii ka dambeeyay. maxaa la sameeyay khariidadeyn ah ee ciidaha Soomaaliya. ugu dambeyntii, annaga oo soo xiganayna baaritaanka caalamiga ah ee lagu sameeyay ciidaha Soomaaliya iyo kuwii taariikhiga ahaa, ayaan soo gudbin doonaa ciidaha Soomaaliya oo waaweyn. khariidadan ayaa muujinaysa kala duwanaanshaha cajiibka ah ee carrada daboolaysa koonfurta Soomaaliya. kalar kasta oo aad u jeedid wuxuu matalayaa ciid gooni ah oo mid walba leedahay qaab gooni ah iyo hawl looga faa'iideysan karo, ha ahaato daaqa xoolaha, beero ama dhirta dabiiciga ah. ciidaha Soomaaliya waxaa ka mid ah arancisols, vertisols, calcisols iyo solonjak iyo nitosols. sawirada waad aragtay sida ay u kala midab duwan yihiin, wayna kala qotar dheer yihiin, properties kala duwan na leeyihiin, isku sina looma maamulo. qaar cusbada ayaa ku badan, qaarna maadooyin kale, laakiin dhammaantood waa laga faa'iideysan karaa sidaan hore u sheegnay. mid ayaan uga sheekayn doonaa annagoo isticmaalayna nidaamka loo yaqaano SWOT analysis. taas micnaheedu waa in aan soo gudbin doono mid walba waxa ay ku fiican tahay, daciifnimadeeda, fursadaheeda iyo waxa dhibka u keeni karo. dabcan si kooban ayaan u sharaxi doonaa insha Allah, laakiin qaab uu qofkii baaritaan yar oo kale sii sameeyo wax badan ka baran karo ciidda iyo sida looga faa'iideysan karo. fadlan la soco qaybta labaad. ciidan siman inuu dib u saldhigo waa siduu rabaaye, halkay sidigta mandeeq nirgaha kula socdaalaysay, sayrankiyo halku daaqi jiray gorayga sawdeeya, saqaafiyo ragba sahan ku tegayo saldhiganaye, adiguna saluglaatihiyo mogan sirahaase. soomaalay hadma adkici ragba sahayday ciidiye, horuu cadowgu sablayday iyo seedkay jaraaye, horuu cadowgu sablayday iyo seedkay jaraaye, sixiixii barlin lagu galay igu surgoyeene.